waxaa soo gabagaboobay sanadkii 2021 adduunyada oo dhan waxa ay gacmo furan ku soo dhaweynaysaa midka cusub ee 2022 inaga oo rajaynayna in Ilaah ka dhigo kii inoo hagaaga ee loo hanweyn yahay balse aynu dib u milcsanno dhacdooyinkii dhacay bilihii la soo dhaafay intii lagu guda jiray sanadka ilaaday ee 2021 kuwaas oo aynu ku xasuusan karno qodobo waaweyn oo ku aastaysan xilligoodii bishii January 2021 waxa isbedelay maamulkii aqalka cad iyadoo Joe Biden iyo Kamala Harris loo dhaariyay jagooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka Mareykanka iyadoo sidoo kale lala xasuusto rabshadihii ka dhacay dhismaha baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill kadib markii dibadbaxayaal Trump taageersani ay isku shubeen halkaasi oo uu ka dhashay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed labadaba isla bishaasi January 2021 hogaamiyaasha Carbeed waxa ay qalinka ku duugeen khilaafkii meesha lagaga saaray cunaqabatayntii Qatar taasi oo ay ku soo rogeen dawlado Carbeed oo Sacuudigu horkacayay bishii February militariga dalka Myanmar si cad waxay ugu dhawaaqeen inay la wareegeen taladii wadankaasi waxaana bilaabmay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo inqilaabka military iyagoo dadkuna dalbanayay in xabsiga laga sii daayo hogaamiyaasha siyaasadda oo ay ugu horeyso gabadha ku caanka ah dimuqraadiyadda Myanmar Aung San Suu Kyi bishii May 2021 dhulka la haysto ee Falastiin waxa ka qarxay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo Israa'iil gaar ahaan barakicinta qoysas reer Falastiin ah xerada Sheikh Jarrah bariga magaalada Qudus Israa'iil waxay qaaday olole military oo aad u weyn oo ka dhana magaalada Qasa kadib markii ay sheegtay in kooxda Hamas ay weerar ku soo qaaday duqeyntaasi Israa'iil oo socotay muddo 12 cisho ah isla markaana si toosa telefishinada looga socday ayaa la arkayay dhismayaal dabaqi ah oo ay Israa'iil dhulka la simayso bishii July 2021 sharikado Mareykan ah oo ay leeyihiin qaar ka mid ah ragga adduunka ugu taajirsan ayaa daafuray qorshayaasha dalxiiska hawada sare iyadoo loo galay baratan adag bishii August 2021 Taliban waxa ay dib u la wareegtay taladii wadanka Afghanistan kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamadii shisheeye ee uu Mareykanku hogaaminayay dhacdooyin si toos ah looga soo tabinayay madaarka magaalada Kabul ee caasimadda wadankaasi ayaa argagax ku beeray dadweynaha adduunka iyadoo lagu arkayay haween rag iyo dumar hoos cararaya diyaaradaha waaweyn ee militariga Mareykanka Taliban waxay ka soo dhaxadashay madaxtooyadii wadankaasi iyadoo madaxweynihii reer galbeedku taageerayay Ashraf Ghanina uu iskaga cararay wadanka isla bishaasi August ciyaaryahanka dhanka kubadda cagta caanka ku ah ee Lionel Messi waxa uu macasalaameeyay kooxdii uu muddada dheer ka tirsanaa ee Barcelona iyadoo bishii October 2021 militarigu ay la wareegeen taladii wadanka Suudaan militariga ayaa sheegay inay gaarsiin doonaan doorashooyin xor iyo xalaal ah wadanka balse kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda Suudaan ayaa ka hor yimid inqilaabka militariga waxaanay dalbadeen in dib loogu soo celiyo xukuumaddii rayidka ahayd talada taasi oo suurtagal noqotay inkastoo ay weli dibadbaxyadu ka sii socdaan Suudaan bishii November 2021 dhalinyaro iyo dad u dhaqdhaqaaqa sidii wax looga qaban lahaa isbedelka cimilada adduunka ayaa dalbaday tallaabooyin dheeraad ah oo wax lagaga qabanayo cimilada adduunka ee sii kululaanaysa iyadoo isla bishaasi Novemberna la sheegay nooc cusub oo xanuunka COVID-19 ah kaas oo loo bixiyay Omicron isla markaana lagu sheegay inuu aad u faafid og yahay bishani ugu dambeysay ee December 2021 waxa la ogaaday in 8.8% dadka ku nool qaaradda Afrika oo tiradooda lagu sheegay 1.3 bilyan oo qof si buuxda ay u qaateen talaalka koronaha inkastoo walaac laga muujiyay tiradaasi madaxweynaha koonfurta Afrika ayaa cadeeyay sida loogu baahan yahay sidii meesha looga saari lahaa dheelitirnaan la'aanta talaalka adduunka